cabsidu waa dareen loo dhiman karo saaxiibkaada oo aad ka nixiso isagoo aan ku ogeyn waxaa suuragal ah in wadnihiisu ay istaagaan waayo cabsidu waa baraarug degdeg ah shaqo xooli ah oo si lama filaan ah wadnuhu ay u boodboodayaan waxaa suuragal ah qofka inuu xamili kari waayo cadaadiska oo wadnihiisuna sida ay ku istaagaan dadka qaar waxa ay ka baqaan dooliga baranbarada mugdiga masaska ama xitaa qofka waxa uu ka nixi karaa qaylo uusan filanayn in agtiisu ay ka yarto tani waa mid ka mid ah dabeecadda noole walba waxaa jirto waxyaabo qaas u ah oo uu ka baqo haddaba su'aashu waxay tahay waa maxay cabsi sideedaba dareenkani cabsida muxuu ka samaysan yahay ma chemistry ba ama waa biology muuqaalkani waxaad ku arki doontaa su'aalahani jawaabahooda si aan u bilowno muuqaalkuna leeg saar haddii uu ku cajabgeliyey aadna wax ka faa'iidi doonto intaanan bilaabin ka hor waxyar ogeysiisa muuqaalada noocan oo kale ee biology iyo chemistry-gu haddii aad u aragto in faa'iido ay ku yihiin waxaad ka heli kartaa iyagoo casharo taxanayaal ah abka shaashada kugu qoran ama gal Play Store-ka ku qoran Global Somali Academy hel casharo diyaar ku ah cabsidu waa dareen noolaha bani'aadamku isku badbaadiyo si uu dhulka ugu sii nagaado waa dareen biology si kooban cabsidu waa dareen caqliga ee doonistu aan lagu kontarooli karin gudaha qofka ayuuna ka soo fulaa cabsidu waa dareen qofka maskaxdiisa ka dhaxdhaca qofka bani'aadamka wuxuu adabtay garansan yahay inuu ka fogaado oo iska ilaaliyo wax walba ee maskaxda ugu diiwaan gashan inay halis yihiin xitaa waxa suuragal ah qofka wuxuusan aqoonin inuu u dhawaado ama uu taabto maskaxdu ma ay ogola waxay junku ku soo deysaa chemicals cabsi ah durba qofka wuxuu bilaabayaa inuu si degdeg ah u neefsado jinkiisuna automatically xaadir inuu noqdo si uu isku difaaco maskaxda ayaa mid mar walba bixisa amarka haddii maskaxdu aysan jirin lahayn jinku waxa uu qabto ma uusan garan lahayn dareenkani cabsida qofka wuxuu reaction isbadbaadin ah sameeyaa xitaa isagoo aanan kala ogeyn wixii dhacay waa dareen halmar qofka si kontaroolkiisa ka baxsan uga soo fula ugu horeyn xubnaha dareenada ee jinku leeyahay qaybahooda kala duwan talaamus waa qaybta maskaxda u qaabilsan waxyaabaha bannaanka ka imaanaya halka loo diray inay go'aamiso dareenada cortex-guna waxay iskangarayaan macluumaadka dareenka ee loo soo diray hippocampus-kuna waxa ay keedisaa macluumaadkii loo soo diray kadibna amygdala waxa ay furfurtaa macluumaadkii bannaanka uga imaaday intaa wixii ka dambeeya hypothalamusku waxa ay taabataa batoonkii cabsida qofkii waxaa jinkiisii oo dhan lagu soo deeyaa chemicals cabsi ah tusaale ahaan waxaad la socotaa asxaabtaada wada cabsi ah adinkoo socda ayaa hal mar waxaad maqasheen dhawaq qaylo ah durba maxaa kuugu soo degdegi lahaa oo aad samayn lahayd waxay u badan tahay inaad cararto oo goobta cabsida ah aad kala baxdo lugahaada sideedaba cabsidu reaction bixinteedu waxay u qaybsantaa laba nooc qayb waxaa loo yaqaanaa low road tani waa cabsida qofka degdeg uu reaction u bixiyo isagoo goobtii taagan ama meeshii uu isaga cararo halka mid kalena ay tahay high road oo qofka inuu ka fakaro xoogaha waxa meesha ka dhacay tusaale adigoo meel lama degaana socdo haddii aad maqasho cod cabsi ah waxaa suuragal ah in maskaxdaada aad ku qanciso in dhawaqaasi uu yahay dhawaaq shimbir ama dabeel iyo wixii la mid ah waa dareen cabsi ah laakiin qofku uu isku dayay inuu hab maskaxiyan ah inuu ku xaliyo cabsidu waa dareen loo dhiman karo saaxiibkaada oo aad ka nixiso isagoo aan ku ogeyn waxaa suuragal ah in wadnihiisu ay istaagaan waayo cabsidu waa baraarug degdeg ah oo shaqo xooli ah oo si lama filaan ah wadnuhu ay u boodayaan hal mar waxaa suuragal ah qofka inuu xamili kari waayo cadaadiska oo wadnihiisuna sida ay ku istaagaan waxaa sidoo kale suuragal ah walwal ka badan ee joogtada iyo stresska qofka inay dili karaan xitaa qofka waxaa dili kara ama cudur u keeni kara jaceylka xad dhaafka ah ee qof kale uu qabo